بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعن أو نكسن داوديال halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka qodobada barnaamijkan aad ku soo gudbid doono ee qiyaari aad ku daawan doontaan hadii ay buuraali ka noqdo waxa ka mid noqonaya Liibaan Shuluq oo bilaabay dhaqdhaqaaq xoogan oo ka careysay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor musharaxiinta Galmudug oo dabarka laga gooyay iyo loolanka oo hadda bilowday xogihii ugu dambeeyay ayaa halkan idinku soo gudbid doona waxa kale oo barnaamijkan qayb ka noqonaya dagaal ka dhacay Dhuusamareeb waxa uu dhaliyay dhimasho iyo dhaawac maamulka Galmudug waxa uu muuqdaa mid markan xaaladihiisa hoose ay yihiin kuwa si kala furfurmaya dhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgal ka dhana kooxda qawaariijta Al-Shabaab waxa ay ka dhaceen deegaanada Cabariga Galgaduud qorshaha filla Soomaaliya ee labadan arrin maxaa uu yahay soo dhawaada qiyaari qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa oo aynu fafaahin doonaa hadii ay buuraali ka noqdo hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran leegtu muhiim ay u tahay muuqaalkan ha ilmaamin si share garay oo saaxiibada la wadaag qaybta hoose ee commentigana aragtida ay noogu reeb degmada Xardheere ee gobolka Mudug waxa ka bilowday oo la doorasho oo u muuqda in garab iyo gaashaan lagu siinayo musharax madaxweyne xilka maamulka Galmudug u diyaarsan Liibaan Shuluq oo muddooyinkii ugu dambeeyay la dalaadacayay eedo iyo fadeexado waaweyn oo ka soo wajahay hub la sheegay in uu lahaa oo lagu bilqaystay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud hubkan ayaa ka yimid dalka Ethiopia waxa uu u rarnaa sida hore loo baahiyaba Liibaan Shuluq iyo nin lagu magacaabo Cabdinaasir Cali Adoon oo ehel dawla ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Liibaan Shuluq ayaa maalmo ka hor gaaray magaalada Xardheere ee gobolka Mudug halkaas waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada saraakiil ciidan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxa halkaasi laga jeediyay kelmado si aad loogu duray Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isla markaana si cad loogu taageeray Liibaan Shuluq oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ee maamulka Galmudug gudoomiyaha degmada Xardheere oo lagu magacaabo Canjeex ayaa hafashadii ugu weyneed uu sameeyay waxa ay ahayd in uu si cad u sheegay in uu garab iyo gaashaan u yahay Liibaan Shuluq ka uu ku tilmaamay nin markaasi gacanta ku haya ka maamul ahaan Xardheere arintan si aad ayaa loo naqdiyay oo aragtiyo kala duwan looga bixiyay waxaana lagu qasbay gudoomiyaha degmada Xardheere in uu bixiyo raali gelin degdeg ah isaga oo soo hadlay Liibaan Shuluq ayaa waxa uu booqanayaa saldhigyada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka Liibaan ayaa halkan waxa uu ka curiyay oo ka bilaabay olaha doorashadiisa ee ku aadan Galmudug waxa uu muuqdaa mid waqtigan karkarinaya isla markaana culays xoogan saaraya Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dhankiisa hadda waxa uu la kulmayaa culays aad u xoogan oo ka soo wajahay dhanka musharaxiinta kale ee la tartamaysa si gaar ah Liibaan Shuluq oo dhaqaale xoogan haysta isla markaana shaqsiga sida aadka ah loo filayo in uu la galo tartan doorasho oo cad Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa laba mid ku bixi doono sida ay qabaan falanqeeyaashu waa midda koobaad in uu qaato qiimo lacageed oo ka tanasulo xukunka maamulka Galmudug iyo in uu qabto doorasho dhoodhoob ah oo isagu uu abuurtay ama sameystay si lamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Puntland ku soo baxay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor arintan kuma dhaco oo waxa Galmudug ay tahay meel siyaasadeedu ay si aad u karkarayso ama ay u baaxaadagi laadahaba siyaasadda Galmudug ayaa hadda la filayaa in laba mid ay noqoto waa midda koobaad in markaasi Qoorqoor uu markaasi qaato go'aan ah in uu ka tanasulo xilka madaxweynaha maamulkaas Galmudug iyo in markaasi uu sameeyo doorasho lamid ah tii uu qabtay Saciid Cabdullaahi Deni ila xog ogaal ah ayaa qaba in doorashadan loolankeeda ugu badan ay gali doonaan xubno uu ka mid yahay madaxweynaha Galmudug ee haatan Qoorqoor
liibaan shuluq oo hadda xilkan u hanqal taagaya iyo sidoo kale taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad. geesta kale daawadayaal haddii aynu eegno dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa ka soconaya deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Galgaduud. ciidamada xooga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa burburiyay saldhigyo kooxaha qawaariijta ah ay ku lahaayeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Galgaduud gaar ahaan kuwa hoostaga degmada Ceeldheer. howlgallo xoogan ayay ciidamadu ka sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin Xaaji Ibaan oo 90 kiiloomitir iyo ka badan u jirta degmada Ceeldheer. ciidamada xaq u dirka deegaanka ayaa howlgalkan qorsheysan ka fuliyay deegaanka Xaaji Ibaan waxaana halkaa lagu burburiyay goobihii caafimaadka ee kooxda qawaariijta Al-Shabaab ay ku lahayd deegaankaasi. ciidamada xooga dalka muddooyinkii ugu dambeeyay waxa isku soo dhiibayay oo si firxada ku soo gaarayay maleeshiyaad ka tirsan qawaariijta kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhibaateysnaa dhulka hawdka ah ee go'doonka ay ku yihiin. ciidamada dawladda ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka kooxaha qawaariijta Al-Shabaab waxayna burburiyeen saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee kooxdan. arrintanna waxa ay ku sababtay maleeshiyaadka shabaab in ay ka soo baxaan dhulka hawdka ah oo ay soo beegsadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii uu ku dhawaaqay howlgalka ka dhanka ah kooxda qawaariijta Al-Shabaab waxaa looga saaray deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay kooxaha qawaariijta Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. waxaa sidoo kale howlgalladan looga dilay horjoogayaal muhiim u ahaa qawaariijta. ugu dambeynna ila xog ogaal ah oo la hadlay warbaahinta nuxurka wararka ayaa xaqiijinaya in wax ka bedel lagu sameynayo isla markaana la qancinayo ganacsatada. waxaa wax ka bedel lagu sameynayaa habka qaadista canshuurta dekada magaalada Muqdisho taas oo ganacsatadu ay ka muujiyeen culays aad u weyn muddooyinkii dambana ay sababtay in la xiro goobihii ganacsiga ee suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho sida suuqa Bakaaraha iyo suuqa Suuqbacaad oo ah labada suuq ee Soomaaliya ugu weyn. ganacsatada ayaa ka cabanaya isbaarooyin dadban oo la dhigtay inta u dhaxaysa suuqa iyo dekada waxaa lacagta looga qaadaa ganacsatada dhowr qaab oo kala duwan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u tageen ganacsatadu ayaa waxa uu ku qanciyay in cabashadooda wax laga qaban doono isla markaana loo ballan qaaday in la fuli doono dhammaan waxyaabihii madaxweynuhu uu kula ballamay oo ay qayb ka tahay dhimidda canshuurta. daawadee halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. amaana Allah.